Sababta baranbarada. Qiimo ugu yeeshay daraasado saynis ah. Cilmi baaris lagu daawacay Frontiers in Physiology ayaa muujisay in borotiinada ku jira dhiigga baranbarada hemolymph ay leeyihiin bakteeriyada disha iyo bogsiin degdeg ah, gaar ahaan cudurrada bakteeriyada u adkaysta daawooyinka. Faa'iido caafimaad. Shirkadaha dawooyinka ayaa baaraya in laga sameeyo daawooyin cusub oo ka hortaga caabuqyada halista ah. Kororka warshadaha caalamiga ah beero baranbarada. Wadamo sida Shiinaha iyo Thailand ayaa leh beero waaweyn oo baranbarada lagu koriyo. Waxaa si taxadar leh loo xakameeyaa heerkulka, huurka iyo cunto si loo helo taran badan. Qiimo sare. Noocyada dhifka ah iyo shaqada adag ee lagu beero waxay sababtay in baranbarada qaarkood lagu iibiyo qiimo la mid ah dahabka. Suuqa xayawaanka duurjoogta ah. Cunto xayawaanka. Noocyada waaweyn ee baranbarada ayaa loo isticmaalaa cunto nafaqo leh oo loogu talagalay masaska, qooleyda iyo shimbiraha. Bay korortay maadaama xayawaanka duurjoogta ah ay caan noqdeen. Baranbarada ayaa noqday il dakhli kale oo beeralayda u furan. Beeralayda iyo faa'iidada dhaqaale ganacsi joogto ah. Baranbarada si fudud ayuu u tarmaa, qarashkuna waa yar yahay, taasoo ka dhigaysa ganacsi faa'iido leh. Xakamayn deegaanka. Beeralayda waxay isticmaalaan qalab si ay u xakameeyaan deegaanka koritaanka si loo helo natiijo fiican. Arrimaha deegaanka iyo anshaxa khatarta. Noocyo ajnabi ah. Haddii baranbaradaan deegaanka u dhalan la geeyo meel cusub, waxay khatar ku noqon karaan nidaamka deegaanka. Xaqa xayawaanka. Waxaa jira dood ku saabsan sidii anshax leh ee loo kori lahaa baranbarada beero waara. Waxaa loo baahan yahay heerar iyo nidaamyo si loo hubiyo in beeralaydu u dhaqmaan si mas'uul ah. Mustaqbalka ganacsiga baranbarada. Isticmaalka ballaaran. Borotiinada balanbalka waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo cosmetics, nafaqo iyo dawooyin cusub. Beddelka aragtiyaha. Marka dadku fahmaan qiimaha dhabta ah ee balanbalka, waxay noqon karaan il dhaqaale iyo horumar saynis ah.